الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore ilaahay baa mahad leh alxamdulillah hadda saacadu waa 7 habeenimo waxaan ku sugannahay xafiiska maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge runtii waa dareen aad iyo aad u qiimo badan oo runtii shucuurteeda iyo aad ula qiirooday baan ugu yimi hadda oo saacadu 7 habeenimo tahay si saaka 6 subaxnimo shaqadu bilaabay ayuu la hadda ugu jiraa runtii waa ku hambalyeynaa maayirka aad iyo aad baan ilaahay uga barinaa subxaanahu wa ta'aala inuu ilaahay maayir xilka ummadda u haysid ilaahay ku asturo waan ku faraxsanahay shaqada gacanta ku haysid caasimadaas oo milyan in ka badan ku nooshahay oo hawlaheedu badan yihiin baad gacanta ku haysaa wax lagu farxaa inaad naftaadii aad u hurisid waqtigaad u hurisid waad xilliga aad fadhidid intii lagu baahnaa intii xaq lagu lahaa wax ka badan sacrifice badan inaad dalkaagii dadkaagii aad siisid waan ku faraxsanahay waan ku hambalyeynaa ilaahay ha ku asturo golaha wakiilada wixii kaaga xidhanna mashruucana kula shaqeynaa insha Allah hormood baan noqon doonaa inaan kala hawlgalno dhamaanteeba iyo xildhibaanada kaleba ee qarankaba inay wixii hawla kaaga xidhan kaaga hawlgalno adigana waxa kaaga barnay inuu ilaahay xilkaad haysid ku asturo sida wanaagsan aad ummadaada ugu adeegsidna ilaahay ku asturo runtii ummadda mas'uuliyiinta kalena waxa la ku dayda oo wixii wanaaga waa la iska daydaa muxuu ahaay wanaagsan maayir badan oo runtii iyaguna dadaalaya jiraan burco iyo berbere runtii adigana caasimadii ba ku dheer xilliga waxa ku fadhiisay filasha la saxiixaysa mushaakilaadkeeda dhulka arrimaha amniga tabashooyinka dadweynaha dhammaan karamayno marka runtii maanta waxaan xaabo xalan ku yimaadaan runtii ku hambalyeeno inaad every day halka ka kacdid every night ilaahayna ku garab galo oo kula shaqeynaa garab taaganahay shakhsiyan anu meer walba waa ku garab taagnaan doona hadii ilaahay naftana suma waa ma santay jazakallahu khair ilaahay shacabkana waxa halka boorinaya caasimada Hargeysa maayirka la shaqeeya ganacsatada iyo dhamaantood bulshaduba aad iyo aad baad ma santahay jazakallahu